aynu ku bilownay Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa bilaabay booqasho uu ku tagayo bariga dhexe si uu markaas isugu dayo inuu xoojiyo xabad joojinta u dhaxaysa Israel iyo mitidiinta Falastiin ee marinka Gaza. Waxa uu sidoo kale ka hadli doonaa siyaabaha gacan looga geysan karo dib u dhiska Gaza halkaasi oo burbur baahsan uu ka soo gaaray dagaaladii u dambeeyay ee geystay khasaaraha kala duwan. Xasan Cali Geelle ayaa warbixintaasi soo akhriyay oo haatan stuudiyaha ila jooga. Xasan, bal nooga waran booqashadan Xoghayaha Arrimaha Dibadda. xasan sheekh cumar Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa safar markasta laga filayay qof kasta oo xilkaasi haya waxa uu ku maraya haatan bariga dhexe hase yeeshee waxa uu kaga duwan yahay mas'uuliyiintii isaga ka horeeyay ee xilkaasi soo qabtay oo halkaasi ama bariga dhexe u tagi jiray sidii loo soo nooleyn lahaa ee tubtii nabadda ee bariga dhexe asagase waxa uu doonaya haatan sidii loo xoojin lahaa heshiiskii xabad joojinta ee Masar ay garwadeenka ka ahayd ee la dhaxdhigay Falastiiniinta Xamaas iyo Israel kadib dagaalkii muddada 12 maalmood ka socday marinka Gaza ee burburka weyn uu ka dhashay heshiiskaasi xabad joojinta ayaa ilaa haatan dhaqan galay isaga oo shir jiraa'id ay si wada jir u qabteen ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Antony Blinken waxa uu sheegay oo uu qeexay waxa uu yahay socdaalkiisa iyo waxa uu ka samaynayo gobolka bariga dhexe. President Biden asked me to come here today really for four reasons. Madaxweyne Biden ayaa i weydiistay maanta inaan halkan imaado dhabtii 4 qodob ay tahay inaan ka hadlo. Waa tan koowaade inaan sheego in ammaanka Israel ay tahay lama taabtaan in laga shaqeeyo in la damiyo xiisadii ka aloosneed marinka Gaza iyo magaalada Qudus, taageerida gargaarka bini'aadanimo iyo dib u dhiska Gaza si ay uga faa'iideystaan shacabka Falastiin iyo inaan sii xoojinno xiriirka aan la leenahay shacabka iyo madaxda Falastiin. Blinken ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka ay ka go'an tahay sidii dib loogu dhisi lahaa marinka Gaza oo burbur uu ka soo gaaray dagaalkii dhexmariyay Israel iyo Xamaas oo dabcan Israel ay duqeymo ku burburisay. Waxa uu sheegay in Mareykanka sidoo kale uu ka shaqeynayo sidii loo xaqiijin lahaa in Xamaas aysan ka faa'iideysan dib u dhiskaasi lagu sameynayo marinka Gaza. We know that to prevent a return to violence, we have to use the space created. Si aan uga hortagno inaanay mar kale soo noqon isku dhacyo waa inaan ka hadalno soo qaadno dhibaatooyinka iyo caqabadaha jira. Taasina waxay ka bilaabanaysaa inaan si baaxad leh u bilaawno gargaarka arrimaha bini'aadanimo ee marinka Gaza iyo in degdeg loo bilaabo dib u dhiskeedaba. Mareykanku wuxuu ka shaqeynayaa in tani taageero looga baadi goobo caalamka iyadoo Mareykanku uu noqonayo dhaqaalaha dalka ugu horeeya bixinaya anigoo carab dhabaya qaybta aynu bixinayno maantaba. Waxaan tani kala shaqeyn doonaa dadka aynu bahwadaagtanahay anigoo si dhow indhaha ugu hayn doona in dhaqaalaha dib u dhiska reer Falastiin aanay Xamaas u isticmaalin wax kale. From the reconstruction assistance. kaasi wuxuu ahaa Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka Antony Blinken. Blinken waxa uu sidoo kale muujiyay taageerada Mareykanka uu siinayo Israel oo uu sheegay inay xaq u leedahay inay istifaacdo. Waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu kala hadlay sidii loo xoojin lahaa hanaanka difaaca gantaalada ee Israel ay isaga difaacaysa gantaalada ka imaanaya Xamaas. waayahay Xasan, dabcan ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa shir jiraa'id ay si wada jir u qabteen Xoghayaha Arrimaha Dibadda sidaad warbixintaadiiba ku xustay. Marka ra'iisul wasaaraha Israel dhinaciisa muxuu sheegay? ra'iisul wasaaraha Israel hadalkiisa inta badan waxa ka muuqatay in ay iska caabiyeen Xamaas xilligii dagaalkii 12 maalmood uu socday. Waxa uu sheegay in Israel ay si awood ama cudud militari ah uga jawaabi doonto haddii mar kale Xamaas ay isku dayaan in ay rabshado soo celiyaan oo ay la dhacaan, laakiin marnaba kama hadlin sida haatan uu yahay xaalka deegaankaasi iyo in xabad joojintaasi ay sii jirayso. Waxa uu leeyahay hadii la soo weeraro waanu isdifaaci doonaa. We too will give meaning to our commitment to our self-defense. Waxa marka koowaad macnaha inoo sameynaya waa sugitaanka ammaankeena. Haddii Xamaas jabiso iminka xabad joojinta jirta oo ay soo weeraraan Israel, jawaab celinta inaga timaada waxay noqon doontaa mid aad u culus. Waxaana kala hadlay jaalkanaga si wada jir ah siyaabaha hubka looga dhigi karo Xamaas si looga hortago inaanay mar kale u gacan qaadin Israel. With the weapons and means of aggression. kaasi wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha
Israel Benjamin Netanyahu socdaalka Blinken ayaa imaanaya iyadoo mas'uuliyiinta Israa'iilna ay sheegayaan inay haatan ogolaadeen in shidaalka dawada iyo cunno la gaarsiiyo marinka Gaza oo lagu gudbiyo halkaas waxaana mas'uuliyiinta Falastiiniinta ay sheegayaan in xaaladda ay ba'an tahay oo dadka Falastiiniintu ay u baahan yihiin in la gargaar aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa xasan cali geelle oo nala socodsiinaya wararkaasi ku saabsan booqashada xogayaha arrimaha dibadda ee bariga xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee bariga dhexe